Assalamu alaikum akhyaarta waa GN Trades kusoo dhawaada. This is the final and the last episode-ka. This is the one setup for life. Waa setupka quraata aad u baahanaysid. If you master this setup oo aad fahantid the basic iyo fundamental-ka of this setup-ka each time you go into the market aad eegtid waxyaabaha aan kuu sheegayo, it's the only thing you will be needing for life. That's why it's called the one setup for life. It's the easiest setup kana la master gareyn karo. Set of rule adag bay haysataa you need to follow day in and day out. And already waan haystaaba dad badan oo arkaysaba logica a couple of trades helaya and understand the logic. So this is the one setup for life. Saad hadda aragteen, this is the exact same setup adigu aragteen. The exact same maxay the pattern anigu personally aan raaco markaan setupkan modelkan aan isticmaalayo 2025 modelkan is the same. Hadda dad aragtid trade kastoo aan soo geliyo telegramka like ma arkisid inay maalinba setupku kii hore ay ka duwan tahay iyo wax cusub ay tahay waqtigii kale aanu ahayn. Is everything is exactly the same. waa copy setup kasta copy bay iska yihiin. So this is the exactly modelka anigu aan raaco oo asal ahaanta qoraal kuma haysti ba idinku waxaan oranayaa it's very important inaad qortiin. Aniga mental note baan haystaa and I kind of know it. So waxa ugu muhiimsan markaad soo fadhiisanaysid inaad haysatid pre-market preparation, inaad diyaar tahay pre-marketka marketkii oo aan la isgelin oo aan las arkin. haddaad matalan soo yara kacdid this is New York time in yar kasii horeysa aad sii fadhidid marketkaada yara ergtid iluun ku dhufatid adigoona xitaaba samaysaneen badde wax qorsha, taasi waxay ku yara tusinaysaa dee inaad marketka si fudud aad u geli kartid. So pre-marketka waa inaad prepare ahaatid before even 8:30 9:30 10 iyo trading hour-kaaga. haddaad aragtiin pre-marketka waxaan sameynaa maxay waa inaad calaamadsid. maxaan idhi maxaad inaad calaamadisid? If you can go back and watch it, waa previous days highs and lowga, waa maalintii hore even 3 cisho ka hor dee highga iyo lowga inaad calaamadsid just to have a note on it. Asia range high iyo lowgeeda oo ah tii kaa hor samaysmatay. sidoo kale London range highga iyo lowga. aniga as a trader ahaan waxba igama gelin which one ayaa hadda la qaadanaya. anigoo kale dee I don't care inaa la qaato maxay previous days high and low on Asia range-ka gudaheeda ay ku jirto ama iyana ku jirin. I don't care. London high range sidoo kale, Asia sidoo kale. So Asia waqtigeedana waxaan o dhan waa timeka waan soo dhignay. This is the Asia range-ka wax kastoo ku samaysma within this time frame aniga waxaan u aqaanaa maxay Asia. time frame-kana maxaan u aqaanaa London. Of course waxaa jirtana time frame kala ah Frankfurt and so on, laakiin this is the most relevant aniga iya. Previous days highs and low, maalmihii hore highgii samaysmay, lowgii samaysmay, Asiaga highgii samaysmay, lowgii samaysmay, London highgii samaysmay, lowgii samaysmay. Those are all important qeybo trading ka mid ah oo note aad qaadanaysid. marka hadda waxaa imaanaysa the second rule oo ah boxigan ku jira. maxaa dhacaya haddaa previous days highs and lowga la qaatay, Asia range high and low la qaatay, London range high and low la qaatay before imisada 8:30. so liquidity-gii baa la wada qaatay. maxaa marka anu aan sameynayaa? haddaan arko already aniga trade-ka maalinta waan iska xidhaya, suuqaygan galaya, waan iska baashaal tagaya. No trade maaha aniga. marketku it can still move xoog hoos ama korde, laakiin I'm not interested. marketka maalinta aniga waan ka baxay, waxna igama gelin waxa marketka ka dhaca. so already hadda waxaad arkaysaa your first rule. so trader ahaan oo kale waxaad arkaysaa dadka qaar aan coach gareeyo waxaan ku oranayaa okay basiskee aad u gashay rule book-kaaga dad aragtid may ku jirtay may but still u dhaqaaqay marketku iyo waxaan rabay inaan participate gareeyo aan ka qayb qaato iyadoo trading maxay ahayd rule-kaagu ka mid yahay bade haddaa maalmahan la qaatay is clear cut ku caddahay no trade.
dadkuna waxay u maleynayaan inaanad trader dhab ahayn haddaanad dad maalin gacantaada ku fadhidid ama marketka aanad sentimentkiisa fahmeyn waxay ku maleynayaan marketka maalintan ma fahmi siduu kugu adag yahay you are not a real trader. It's the opposite. Real traderku waxa weeyaan kas garanaya maalintu quusayo oo mar rabada inuu badda aado wuxuu oranaya maanta xeebta kacsan anoo iska fadhinaya waxaan sugaya maalin hadceedu ay soo baxaso hadceedu ay kulushahay biyuhu kulul yahay ama maalintaasan dabaal tagaya laakiin maalin roob u da'ayo dabaylo socdo anu badda uma dhawaanay. And as a trader that's the way you need to take your trading as a business. Ma aha wax yar ciyaar lacag badan aad gelinaysaa waqti badan aad gelinaysaa. Take your rules extremely serious. So hadda waxaan sii oranaaba ma previous days ahaan low way noo taala wali so intaanid waa maalin trading ah waxaan suganaa wait for a minor swing low iyo high to get swept ina la qaato high iyo low ku dhex jirta trading zone-ka. So hadoo kale waxaan oran karnaa this high is London high and this low is London low. So waxaan orananaa waxaan suganaa marketku xaggan marayo this is what I call minor swing lion ho hadda marketku intaasu maraya. So waxaan sugayaa wait for a minor swing low and high to get swept. Aan waxaan sugayaa inaa intan ama intan la qaadanayo mid gudaheeda ku dhex jira inside of these ranges. So intaan gudaheeda inaa mid laga qaato taasi ima noqonayso inaan trade haysto laakiin waxa weeyaan the idea of trade wuu dhici karaa waa easy xoojinaysa afkaartayda. And afterward a strong reaction with volume that leaves behind a fair value gap. So marka swing high-gan internalka la qaato ama kan la qaato waxaan rabnaa marketku inuu ku dhaafo awood oo ma aha hadda sida hadoo kale waa inuu xoog u dhaafo kadibna uu ka tago imbalance or in a form of fair value gap ah. Taasna yet macnaheedu maaha aha trade baan haystaa laakiin idea of a trade baan haystaa oo way ku sii xoojinaysaa tradekaaga. So waxaan oran karnaa xaggan saad arkaysid matalan marka la qaatay xaggan waa 8:30 iska dhe time frame-kan exactly xaggan waa 8:30 lowgan sameysmay this is 8:30 kararkan bedelayso waxaan oran karnaa meeshan waa 8:30 adiga time frame-kan waa 8:30. So marketku hadduu high-gan qaatay oo kale internal high-gan oo kale where can we expect inuu price-ku u sii jiito xaggan hoose maxaa ku yaala London lowgan waa meel price-ku aad ugu soo cararo. So within that marka marketku 8:30 kor u kaco uu qaato internal range-kan xaggan high-gan oo haddana xoog u swing gareeyo fair value gap nooga tago waxaan target gareyn karnaa xagee the London low. So this here waxay ku sheegaysaa on exactly the same. If the fair value gap is bearish the range high must be taken out. Range high waa xagga sare must be taken out. If the fair value gap is bullish then range low must be taken out. So basically adoo trading hadaad garanaysid hadaad maxay leedahay labada waad flip gareynaysaa xaggan iyo xaggan baa waad flip gareynaysaa. I think you guys understand it hadda. Marka anu limit order aad ku geli kartaa but also waxaad ku geli kartaana market order oo uma baahnid inaad marmarka qaar aniga ku gala limit oo waan sii geliyaa fair value gap hadduu meelahan igaga tago waxaan sii geliyaa xagga iyo xaggaas I'm gonna sell or waad fadhin kartaa markuu marketku soo galo area-haaga ayaad sell gareyn kartaa market order waa samayn kartaa. Usually waa 2R 1 to 2 oo soo wax saas oo qiimo fiican ku siinay marmarka qaar waxaan idin tusinaya example-ka trade is not worth the risk marmarka qaar. So you have to balance it out. Marka waa inaad yara fadhidid aad garatid maanta wax kasta waan helay laakiin range-ku iguma filno may u qalantahay inaan galo aan u dhididada waxyaabahaas oo dhan. So that's why I always say target-kaaga waa inuu ahaado maxay 2R. 2R-na is very very achievable. waa waxa loo yaqaano maxay ahaday tan waa oo weeyaan low hanging fruit.
waxa weeyaan waa midhaha geedaha xagga hoose ku yaala de waa low hanging fruit waa wax very easy oo accessible ah ma aha maxay ahayd midhaha geedka dushiisa ku yaala waa wax markaas aad samayn kartid with compound effectigana de within time 2 hour ada consistent tahay wuu ku dhaa okay haddoo kale waxaad arkaysaa 9 hour ama 10 hour can you get it every day realistic ahaan no but like in 2 hour can you get it every day realistic ahaan yes 2 hour every single day not every single day but every session waad heli kartaa multiple times because ma aha de extremely big range ma aha waa wax very achievable oo marketkuna keep repeating it marka haddaad hadda aragtid this is maskaxda ama afkaartan haysto pre-analysiska Asia range-kaygu way calaamadsan tahay this is the high of the Asia range lowga Asia range highga Asian range ayaa qaatay markii London la gelayay London baa qaadatay London formed maxay the newest high and the lowest of the range ka waa kee waa Asia so marka xaggan aad arkaysid aanu ma haysid trade laakiin marketka waan arkayaa uun meelahana way calaamadsan yihiin always Asia range-ku way calaamadsan yahay all of the Londonna way calaamadsan yahay anna waxaan rabaa intaas inaan arko siduu u dhaqmi doono marketku within these ranges so marketku hadda markaad arkaysid London markii laga baxayay 8:30 xaguu ku furmay 8:30 candle-kan uu ku furmay as you can see marketku xaguu u dhaadhacay hoos buu u dhaadhacay it took out minor liquidity oo xagee ah the sell side-ka de hoosta so haddoo kale waxaad oranaysaa okay xaggan waa la qabtay I wanna buy fikirka dadku waxa asaastay I wanna buy laakiin marketku miyuu ku tusiyey willingness inuu rabo inuu jihadiisa bedelo no London lowgu qaatay still the same okay now I wanna buy marketku miyuu ku tusiyey a willingness ama change in its direction-ka no wuu sii dhaadhacay all the way to what Asia lowga after 8:30 ayaa move-kan culus aan helnay hoosun loo socday in yar uu kor u kacay hoosuu socday so marketku markuu Asia lowga qaatay uu is yara bedelay you see lowgii intan oo dhani waxa weeyaan areahan oo dhani waa the true stop hunt-ka weeyaan areahan oo dhani aan calaamadeeyay waa true stop hunt-ka oo meesha lagu qaatay kuwan oo ah Asia range-ka oo badankooguna stop loss-ka ay gelinayaan matalan dadka xaggan ka iibsaday ilaa dadka xaggan iibsaday usually stop loss-kooga xaggan ay gelinayaan lowyadani hoos gelinayaan all the way waxay oranayaan no way uu ku soo noqonay Asia range-ka oo safe bay dareemayaan and also kuwan iibiyey ee London high-ga topka ka iibiyey iyagooguna xaggay stop-kooga dhigayaan meelahan sare dhigayaan so waa inaad yara garatid price-ka xagga stop-yada la dhigo it's very logical ma ahana wax saa u sii adag laakiin tan haddaan aragno marketku markuu qaatay Asia lowga muxuu sameeyey swing high-gan ma arkaysaa or even swing high-gan marketku muxuu sameeyey wuu qaatay laakiin higher buu qaatay mase laakiin wuxuu ku tusiyey inuu rabo inuu dhaafo awood buu ku tusiyey displacement kor buu xoogu yara kacay ma taqaanid oo muxuu nooga tagay fair value gap-kana xitaa marketku markuu sidan u galo oo aana hoos uga sii dhaadhicin waa very good indication marketku inuu in a hurry uu degdegayo waxaad arkaysaaba inuu kala badhuun 50% of the fair value gap-ku muu soo galay jidhku muu dhaafin only the wick the body stays above the 50% isla markiiba maxaa dhacay marketku isla markiiba uu cararay wuxuu qaatay 8:30 high-ga and also haddaad usii eegtid wuxuu qaadayna London range high-ga so this move is one I participated in laakiin waad aragteen if you look at the Telegram-ka is this
pre-analysis ka xitaa ma waxaan ma setup cusub ma waa setup beena ma is it the same thing, copy and paste, same thing, copy and paste, same thing, copy and paste. wax cusub ma aha, afkaar cusub ma aha, is exactly the same thing. laakiin the difference ka waxa weeyaan adigu maad la qabsanin inaad waxaan aragtid, so waxay ku tahay luqad cusub oo kale. waxaad u malaynaysaa marketka lama akhrin karo, run ahaantii lama fahmi karo, predictable ma aha. marketku waa copy and paste, waa same price action every single day, same price action. laakiin haddaad hadda garatid rule book fiican haysatid, waad kala saari kartaa waxa kuu muhiimka ah iyo waxaan kuu muhiimka ahayn, maalmahaad fadhiinaysa iyo maalmahaan fadhiinin. I don't trade every day, laakiin waan garanayaa maalmahan tradeynayo. hadda 2 weeks waan garanayaa hadda exactly the day, the time frame, the hour aan trade garanayo, sessionka waan ogahay, pairkayga waan ogahay. so no worry, no hurry, degdeg iyo xasba maaha. so hadda all I'm telling you guys is waxani, is it the same thing, logical based ma tahay, real setup ma tahay, mase waa wax iska hadalada. have you seen it time and time again, this same pattern repeating, same logic repeating again. haddaad may tirahdid I really believe marketka ama waad ku cusub tahay ama view khaldan baad ka haysataa, but as I've seen many of you guys already waxaad arkaysaan bade success in your trading, iyo maxay couple of you guys baa xitaa funded noqday just by the free material kan soo dhigay, just by that iyo understanding. taasoo ku fahminaysa waxani waa xirfad aad gudbin kartid oo dadka loo dhigi karo, ma aha wax aniga ii gaar ah ama traderka isticmaala afkaartan u gaar ah, but something you can teach also oo aad gudbin kartid. so look at this pattern all the time, is keep repeating. iyo mid kaloo muhiima aan sheegayana waxa weeyaan hadda haddaad arkaysiin manipulationka uu ka dhacayo waa area ka dhacaya, manipulation, expansionka iyo true priceku xagga u socdo. anaana idin tusinaya hadda. so hadda marka ta kale waxaad ka baranaysaan waxa weeyaan the movements of the price, which is waxaan oo dhan ay tahay de marketku 8:30 xaguu ka furay markaan arkanayo kale. it did not open here, laakiin tan waa tusaale kale, meelahan saruu ka furay. waa openkii, the market went down, then it went up and it closed xagee meeshan dhexda. so movement kaasoo kale haddaad fikir ahaan u haysatid is very important, sababto 8:30 markuu marketku furo, if it goes down oo kale de xaggan uu ka furay sama, if it goes down waa anigana afkaartaydu already aan garanayo in liquidity meelahan sare ay fadhido, xaggan ay fadhido. waxaan ka fikirayaa the 1 hour candleku suu u ekaan doonaa, or 4 hours candleku suu u ekaan doonaa. marketku meelahan dhuxu ka furayaa, it will go down and it will go up and it probably will close ka waxba nagama gelin de, but that's really important. marketku uu furayaa, hoos buu dhaadhacayaa. so laakiin candleku siduu u shaqeeyo hadda maskaxdaada ku haysid, a lot of trading aga fududaanaya. so this is also waxaan ka fikiro markuu 8:30 marketku furay, I wanna buy where meeshu marketku ka furo iyo between this area lowgiisa. so I wanna predict oo kale xagge area ka geli karaa from the opening to the lowga. I don't wanna buy markuu openingiisa la dhaafo. sometimes you can, yes, laakiin waxaan rabaa inaan priceka markuu extreme cheap u yahay inaan galo. premium price ma rabe, discount price aan rabaa markaan iibinayo, and vice versa. marka selku yahayna of course just flip it. so this is exactly the same, just flip it oo de markuu sell modelkan uu yahay. weegan 10th-ka aduu November 10-keeda ilaa iyo 15-keeda you guys have seen the trading setup kan soo dhigayay. and is it the same or not? is it the same logic mase waa different setup xitaa? I try to use only this model kale xitaa ma isticmaaleen, because this one I feel like waa ka ugu fudud and it's the most important. uma baahanaysid run ahaan dee, if you master this one no other model uma baahanaysid. this is it, because it's simple, waana heli kartaa waxaad rabtid. it's no reason inaad wax kasta baratid, xirfad kasta baratid, unless tan aad master garaysay and then
you want to inaad kordhisid oo kobcisid aqoontaada wadaan laakiin tan kordhinin maybe something else will be for you. Asia range-ka waa kan, London range-ku waa kan, 830-gana maan calaamadeen but it's this candle 830-ga. So market-ka 830 wuu dhacay, it took what? It took the buy side, it left the buy side, swing low bay qabsatay, left us with what? A fair value gap. Okay, haddoo kale adiga hadda xaggan joogtid xaggee target karayn lahayd adiga? You see this low, you see this low, and more important lows kuna waa kuwii Londonka lacagta haystay ee shaqaystay. These people are in big serious trouble. Sababtoo kuna lacagta culus ku fadhiyada kuwii relatively iibsaday meelahan areahan ka iibsaday ee Londonka ee Islamic marketku kor buu sii soconayaan uguma soo noqonayo. They have a lot of buy stops badan bay haystaan oo marketka ay u iibinayaan. So fair value gap-keenina waa kan, marketku uu buuxiyey, bal eeg how the bodies is respecting it. 50% of the value gap-ka xitaa u galayaan only the week. Again haddaad tan misgaraysa waa tan, the price went up and also it went down. You see it? To the sell. Exactly the same model. And Telegram-ka kuwa la socda arkay. This model is very easy to understand haddaad yara fahantid time-ka iyo price-ka. Time-ka sug, price-kuna han qaato ha liquidate gareeyo any range, internal range ama external range, buy side liquidity, sell side liquidity. Markaana maxaa target garaynaysaa? Always you're gonna target the opposite. xagga sare haddaan la qabsaday, instead of dadka qaari waxay sheegeen in breakout trader yihiin oo kale. So waxay oranayaan marka xaggan la jabiyo exactly xaggan ay ka iibsanayaan to go higher up. Aniga xaggan marka la qabsado immediately aanu sell-kan eegaya. Aan labadan haddaad aragtid kuwa in reality-ga lacag ku fadhiya, taana waa mid adiga ku gooniyo dee shakhsiyan qiimeynaysid which model is more based on maxay tijaabo ku celcelin iyo ta badan ku fadhida hadalka iyo no based on any sort of reality. Sidan ku helay 52k in 1 week on top step-ka waa 2 accounts or 150 ah each in singular week. So this is yet my biggest payout, my biggest trade, winning trade. Saan umaleeyo my trading career-ka. November has been very good month actually. Laakiin December oo kale de waa bishii aan ka dhacayay. So the totality of December maybe 3 days or 1 week at most ayaan ka eegi trade, but bishaas I will be traveling iyo oo maqnaan doonaa for the most part. Gonna be busy with things. So waxaan rabay inaan sheego marka hadda markaad aragtid payout-yada dadka kale and immediately the first thing dadku ay sameynayaan kale waxa weeye marketka ku cararayaan just to get the dopamine say u helaan iyaguna idhaahdaan waxbaan helayaa. Sababtoo markaas waxay isku cabirayaan dad iyaga dee marxalad kale nolosha ku jira. So everybody waxay ku jiraan their own time frame. So markasta isweydiiya aduma time frame-kaygan ku dhaqmayaa mase qof kale hebel time frame-kiisan ku dhaqmayaa. Because waxaad oran kartaa anigoo kale 5% payout 5% oo kale aniga wuxuu noqon karaa de 7 to 8,000 while adigana uu ku noqonayo maybe $50, $60, $100 de aniga $3,000 maybe yahay. So taas oo kale haddaad u aragtid qofkani he earns more than me, laakiin it's not the reality. Kala time frame kalaad ku shaqaynaysaan, kala experience baad tihiin, kala accounts baad tihiin. marxaladaada xagga ku jirtana waa muhiim inaad si fiican isku eegtid oo isku qiimeysid, maaha inaad dadka isku dhererisid xagga aqoonta yes but no xagga in maxay lifestyle-ka xagga lacagta soo galaysa. Sababtoo qofkan waa inaad ka fikirtid imsa sano isagu dedication geliyey, imsa waqti geliyey, imsa jeerood buu dee hawlihiisa ka mashquulay, reeraha ka mashquulay just to make things happen.
so most of you now waxaad maraysaan badda in that time oo garan kartaan badda hadda inaad sacrifice aad samaysid xagga weekendkaad u baxaysid, you have to lock in, sababtoo ah waad dareemaysaa each week, every week oo isticmaashid tradingaaga waad arkaysaa inaad progress sameynaysid, because you can see the marketka, you can see aqoontaada, you can see the mistakeskaaga oo sii badanaya oo aad sii hagaajinaysid, and so on and so forth. So time framekaad ku shaqaynaysidna ogow, everyone has its own time framekaaga ku dhaqan, don't let the other people stress you inay kaa dhaadhiciyoon waad ka raagtay dadka, waad ka habsaansan tahay, because hadda kasoo tusaale qaadaba, like aniga this is 4 to 5 years weyaan, waxa weeyaan 4 years of not getting payout iyo 2 years of getting consistent payout. adiga ka fikir hadda hadaa lagu you're gonna be struggling for a year or 2 year, but your third year waxaad helaysaa enough money to offset all your losses 1 month. ayaad profitkaaga oo dhan wixii aad khasaartay 3 sano oo dhan ayaa kuu soo celinaya. markaasoo kale ma waxaad oranaysaa 1 to 2 yearskii 3 yearskii aan geliyay khasaaray ahayd mase faa'iiday ahayd, because now you just paid it back in 1 week wixii aad khasaartay 3 sano oo dhan isku xigta. so noloshana saa yara arag, waxaad tidhahdaa one day it will pay off. no, hadda you don't need to be paid off hadda, uma baahnid. now you need to study, you need inaad isbaratid, you need to be realistic. waxaad u baahan tahay inaad si fiican tradingaaga u qorshaysid oo cabiran oo ka dhex baxdid like the hype dadka badanka oo kale, because they sell just a dream. waxna ma dhigayoon, wax merit lama dhigayoon, wax waaqica ma dhigayoon, oo dadku badankana kama fiirsanayaan waxaan aqoon may soo kordhinaysaa, dakhli may soo gelinaysaa, maxaan ka faa'iidayaa. so waxaasoo dhanna waa very very important. runaantiina I don't like inaan often post gareeyo like the payout iyo and so on and so on, like waxaan arkaa it's like attracts more people. dadkoo kale markaasoo dhan way soo cararaan, and like markaan soo dhigay educational videoga, not a lot of people interest badan ma siiyoon, like ma hadal hayoon. most people aday arkan payout oo kale oran sidee what do you use, what setup, what pair. laakiin markaan education soo dhigayo or live stream ama waxaan tusinayo kalena badanka it's not a lot of interest. waasaan ku arkayna a lot of these people ka ah they are influencer, ma ahano real trader. waxay dhigayona ma aha they just selling dreams, riyay dadka ka iibinayaan oo ah sidan aan ahay and it's all of trading. I don't believe that. sometimes it's not, run ahaantii waa they're just selling a dream, not a real trade. weli adaan kamaan loo kulmin but qof Soomaaliya who is doing like what we are doing, showing a real consistent trade, showing a real model, so mataqaanid getting a real payout. so mataqaanid marketkana ku jiray muddo dheer. and even my students, you will probably see them on in the Telegram ka soo galayaan, but lord student or private and mentor gareeya hadda like couple of months, they are even getting very consistent. iyagoo baa xitaa wax dhigayo arday haystaba so that's really good to see. so inshallah for 2026 we're gonna go and educate more people inshallah, because waxay ahayd all the time like behind the screens and so on and so on. this year inshallah we're gonna open private mentorship or a group mentorship, so it's not gonna be that badan, it's gonna be very very few. so waan kala dooran karnaa. anu uma baahnay like in 100 qof imaadon, 200 qof imaadon, maybe 10 people, 7 people, wax yar oo group yaroo la isbaran karo ah, very few people, because I want to make also them like real traders, that's what I'm aiming for. waxaan rabnaa inaan dhisno the biggest successful Somali trading community oo xitaa galaya maxay ahayd the World Cup, so that's the goal. so it's gonna be very competitive way ahaanaysaa, and all the free stuff now always on soo dhigaya. I will always support the community with education with trading with analysis and so on. but for those people they raba inay gaarloon next step in the trading career of course abaabadan u furana iyagana and it's a lot to learn. so and I have a lot of learning inaan dadka siiyo aqoon badan oo aan siiyo, khibrad badan oo siiyo, meelo badan aan ku gubtay
which I can give explaining and education, inshallah. That's what I believe in. Inshallah, this is the Instagram ka iyo Telegram kana xagaa nagala socda, and also the YouTube ka. And in December waxaan furanaa inshallah the mentorship program ka, where you can send in your application nadaada. I don't know yet exactly, but it's gonna be very few that. And education videoyaashan way soconayaan the all 2026. We're gonna go in extremely hard sanadkan. It's gonna be inshallah the greatest year for a lot of traders, you know. Aniga, especially me, I believe 2026 is gonna be my best year of all of the years, you know. Locked in boqolkiiba boqol. And also that's qaybta kale aan ka qayb qaadanayana waxa weeyaan I will be more connected to the community. Trading more on soo dhigaya. I'm gonna show off more of my thing, because many years waxay ahayd just private thing, you know, with my private community ga iyo inta qof aan mentor gareeyay. Inshallah 2026 is gonna be very very big year, you know. So diyaariya programkiina qorta. So 2026 I believe is gonna be just trade focused, private ka xitaa inshallah mentorship ka dadka un soo dhigaya and all. So waxaan rabnaa inaan helno more traders who is wax bartay, aqoontan qaatay, iyaguna ay gudbiyeen, you know. So those people hadhow complain gareynaya ma oranaya ma fahmin, I just failed, you know. You can never say like I failed you, run ahaantii it's you, waa adiga, because many people ayaa success story ka haysta. So adiga wax ku gaar yihiin, and I can easily diagnose it, waan arki karaana the reasoning there. So inshallah 2026 a lot of positivity weeyaan. It's gonna be inshallah our greatest year inshallah. So locked in, stay in, study, and be ready for a lot of education videos, inshallah. Waa anigoo GN Trace ah, maanta waan ku yara dheereeyay. Waan idin salaamaya inshallah to the next time.